sano marka oo horseerta gudaheega yaajin oo ka maanta le waxaan haystay ilaahay awdalan iyo kaale ku khaatumi state baan ahay ilaa uu noo yimaado asku af noqono in dadka wax weydiisanaa ma ta ka dhawaajin awdalan iyo khaatumi state way sheegeen way shaaciyeen iminka khaatumo sanadka saddexaad bay hadda isu diyaarinayaan shir Somaliland sidee bay u aragtaa arrintaas horta khaatumo qofka markuu wax sheeganayo waa inuu haystaa magaalada saayidee dad uu xukumayo haddana marka intaan fadhiisto magaalada saayidee inay guuxa meesha la yidhaaho oo magaalada sareerka ugu xadka Soomaaliland ah fadhiisto oo ilaa state waxaan samaynayaa magac intaan degaan magac ku sheego wax ka dabo ee socon mayso laakiin waxa weeye dadkan dad wax tirsanaya waa wax magaalada saayidee in wixii tirsan la dhageysto oo aynu waxaan aan tusayna waxaan wada leenahay annaga iyo dadka magaalada saayidee dhulka degaan koonfurta Sool iyo bariga Sanaag ma kala maarano toodana kaliya u socon mayso taayid kala aanto ma socon mayso sayna ka xariir degan inka siilaa jeegan wax aan wada leenahay haddaan Soomaali wax la qaybsanayna annagoo Soomaali ah annagoo midaysan oo hal cod leh ay wax nagu hagaagayaan haddaan taayid ay markay nala galtaana waxa wax ku noqonaa oo ixtiraaf ku ilaa annagoo midaysan laana marka aanu khaarijada ka baxo iyo way tagayaan waxay wax wada xukuma jiro ku qaybsanaa aadiya markaas daba wareegina aadiya markaas sidii suuligaas u dhamaado sidoo way dhamaado waxa weeye inaan hortaano gudaha hagaajina inaan maamulkayga iyo administration iyo sharciga aan gaarsiina ilaa meesha uu koonaysa bariga ogeena waa inuu keenaa markaas baan adduunka oran kaana adduunku uu naga gardaraya laakiin marka anaga qiyaacna maqayahay markii buuhooda naga maqan tahay oo buu hoos timaada inaan adduunka canaanana aan badnay lahaa Soomaaliya hor taagan waxay la tahay dalil xagee ka timi marka gudaha iyaga inaan hagaajino way noo qorshaysan tahay aadiya waana iyada reer awla iyo horta iyagoo garheli maayaano 8 sano reer awda dalka xukunka maantana waa madaxweyne ku xigeen marka ina afar qof ay lahaan awdal baan ahay iyo wax ka soo qaad male midan qaato laakiin qoladan khaatumo waxaan doonaynaa arrinteeda inaan si dhiib leh u galnaa waxaan isku haynaa waxa weeye Soomaali aynu wax la yeelano iyo ma ay sameeyaan ugu fiican tahay waan isqancinayna mid baa jirta dhowr maalmood ka hor madaxweynaha Khaatumo State Maxamed Yuusuf Jaamac Xala wuxuu ku baaqay reer Khaatumo gudaha iyo dibadda inay dagaal u diyaar garoobaan wuxuu qiil uga dhigay Somaliland baa dhulka iyaga ku soo xadgudubtay arrintaas aad aragtaa inta qalad horta dagaal ma fiicna horta dagaal maanta Soomaali ugu dhawaaqa oo qof aan aqal lahayn kii Soomaaliya iyo dunida leenahay Somaliland anu de taleex tukaraq dhulkii Somaliland baa weyn واقرت حق بولين أنا وحنا كو هايستا دولة وما حد كو تيجي هذا قبل هذا وكو كاربين كذا ليه بلود ما حد كو تيجي له إنت واحد كسر إسكتله ده ضل كاي وسط حريصا ما حد بقول كل شيء كان بغيين هو قال